hadduu rabo qofku inuu marka ahalkiisa u hagaagsanaado oo uu fiicnaado waa sida qof walba jecel yahay qof walba soo jecel yahay dadkaagu inay dad fiican noqdaan adduunyo aakhira waa ku fiican ay noqdaan akhlaaq wanaagsan salaadaha ku fiican cibaadaadka ku fiican tarbiya wanaagsan ku fiican haddaba waxa isku daydaa tilaabooyin muhiim ah oo aas ina qaadid oo la timaadid marka koobaad waxay ka bilaabaneen intaadan ba guursan qofkii aan nolosha la noolaan lahay inaad dooratid raadis ikhtiyaaru zawjati saaliha illa raadiya haweenay saalixada oo wanaagsanna waa min ad-diin weey nabigaan amray sallallahu alayhi wasallam fadfar bidaati ad-diin taribat yadak aqraada dumarka loo guursado nabigu markuu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuuna amray midda diinta u saaxiibka waayo diintu way baaqi ahaanaysa quruxdu way dhamaan hadii mansab iyo jeega ay ka soo jeedo waxa laga yaabaa waxaas ina dhamaadaan maalku waa dhamaan laakiin waxa baaqi noqonaya oo nolosha kugu baaqi noqonaya waa diin qofka in laga bilaabo walidaalika haweenay saalixad ah nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam الدنيا راحة طالبة إني بتهيب المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا الراحة هذا وحقوق خير بدنا وقوة أحسن وهوين الصالحة إلهي بري إنه مش صالحة إلهي كوجو آديو إلهي كوجو أرزاقه أسبابه هذا الله إمو والصلاح يوناك عدو هادي والله إمو إلهي نبري مدو ناكس إلهي كوجو آديو قبيلها كل راعي قروحها كل راعي مالها كل راعي منصب يشيغها كل راعي وحاد كبل لو ذا شرطك أساسك إنه أهاده الدين وعيك له الزيادة إلهي كقدر وفضل من الله يؤتيه من يشاء لكن فاتوا الدين هذا النيد ونأكسر أولي هذا إلهي وقوة فشنية هذا يهوري كون عفتي فرصة دعس وهو يقول يكوشوك تايسا صلاحي وناك هذا كد دورانين هذا وحا كل داشا ايضو اني نقطه قف خيرك يا وناغا كخيرن او صلاح يا وناغا كقيب قادته ان نقطه كل دida tilaabada labaad reerkaasi markuu dhismo waxa iimaanaya hadii ilaahay ku arzaaqa awlaad waxay ka bilaabanaysaa khudwada koobaad al-ikhlaas fi tarbiya al-ikhlaas lillah maxaa yeelay amalkan qofku sameeyo tarbiyada ilmaha ah waa cibaado ilaahay baa ugu dhawaanaysa waa inuu ilaahay dartii ka yahay oo qaradkaagu uu yahay in mahaan intay naftooda anfacaan oo diinkooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo aakhiradooda dad dareemo oo fahmo inay noqdaan ilaahay waajibaadka uu saaro inay dareemaan oo fahmaan inay waajibaadka ilaahay gutaan kuwa adoomadu ku leeyihiin ay gutaan waxay ka iimaanaysaa ikhlaas ina ula timaadi tarbiyada koobaad baba inaysan ka ahayn ammaan laga sheego hebel waa ka ilma fiican ya hebel iyo waa ka ilma fiican ya aysan ahayn ee ilaahay dartii ay ka ta ilmahan inaara ka badbaado wa amal qaali'a oo muhiim ikhlaaskaas ka marka la timaadid ilaahayna ilmihi ku siiyo ilmihina ay gaaraan wax barasho خطوة كلا صدحات الراعيسة وحوية إنا علمه أوجع عادة دكتي عباداتك هي صلاة هي صدقة هي خير كأنه يمادان وإنه يعاد لهذا وإنه يتقن أهان وقت ربي يساع إنه عادة كدكت علمه صلاة هي خير كأنه إسكي يماد أو صحابر تربية سؤال الله تماما إلهي النبي محمد وحكيري عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أهلك الصلاة ضفر بالي كن الصبر كد ذلك خير كان السجع وحويان المهم مركز صلاة دي بجاران وتوحيد كل الله قنا يجوا يرير ويكبر بارين صلاة دين الله بري أو جاري إن صلاة أو دائمة أو شوكتي وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام تضوصنا مركي جاران صلاة برا
طهارتي وإنه يقانا وحيكون بريس وإنه يقانا وحيكون أنصحي سيقانا صلاة أنت عددات ركعات كذا طهي أركان تيدي قرنا يا وإنه يهي قف صلاة دي سوء لما يسترن طهي تتوصلوا كذا وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين تتوصلنا مركي تتوصلنا أي قارا نكو قراعة تتوصلوا قاري حدوثا تكني والوكر باشي ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الآن قيمة بدل أيوب هذا الكاسي وحويان وحير ومن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة قفك قرقي سو كنو لي أغون ير أما أضون أما وحوي عنق ير وأسقوا دلي أما قرابتي سقرقي سمسؤولتي سو هيو أو صلاة وسنفرهين وارد كاسي فقفك مسؤولك كان صلاة ونفرهين فإنه يعاقب الكبير ويعذر تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله نينكا وينو مسؤولكا والله عقابيا وانا لا تعزيريا تعزير يا كرباش حيل دير يا الكرباشيا محايا لإلهي يا رسولك سوا عاس أوفيس قريقا آد مسؤولكا كتاها لقب الله ومانت ويدي إلمها 10 سنة قاري مكوتو كذا أما أدوك دلا ما حدالي مسؤول ما كتاها ما تكلم بس ما تكلم هذين أنتو كنين أو سيدا كفير ستد وحويا شرع الإسلام كا محكمات اللي قصاره واللي قصوت تاجو أو اللي تعزيره تعزير حيل دير أيام متيسطي اللي رسول الله العزيز يلا أمر يلا لا حط لي أمر كان وحويان هذا اللي قوله حط لي إن هذا مسؤول كتها يدقوري جاجا يدك شوجا صلاة وإن تكذا وتقول قال تربية تعليم تكوبادة قفك ضيعه وحو ضيعي وحلا ضيعه وحو ضرنا وحو يرى الإمام ابن القيم فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه قفك كإهمالية عنقيسة وحي أنفع لها إنه بره وتركه سدى اسكان السيدايا صغوا حرق فرها كقاعدة سأسك قداي فقد أساء غاية الإساءة حمين الحماية وح الحماية وح ما بكو حماية قفل الحماية حمان لو جيست مدي أقول وينيد بأبها سلميسة وجيست مركز وحير ابن القيم وأكثر الأولاد أولاد أين أركينه فسادي بدن كودو إنما جاء فساده من قبل الآباء فساد كاسي وحو كي مدلنا آبا يالك وترك تعليمهم فرائض الدين والسنن إهمالين إهماليين يبرد الآن أيسن دين إلهي برنين أيها فساد وهل كاسو كيمي مركز وحي فأضاعوهم صغارا المهدي وحي ضيعين أولميين أيغو يريان فلم ينتفعوا بأنفسهم نفتوا ذمينا أنفعين المهاس ولم ينفعوا آباءهم كبارا أبيالكم ما أين أنفعين مركي وينادي أساقين وضيعمي ونفتي سما أنفعين والد كيسنا ما أنفعين مركي وينادي نفتي سنة وحكميال والد كيسنا وحكميال محايا لأس كي هراء يالا سوق الضي ميلو كدن بيو ميلو آدان لويدين تعليم يا خير بان لبرين وربان لغا هينين ساس ضيعن قضب كأفراد ومهم كاي waxa weeyaan ilmaha waxyaalaha sharciga ilaahay uu san ogol in laga ilaaliyo oo laga dheereeyo oo waxyaalaha munkaraadka nacaybkooda qalbigooda lagu talaalo qalbigooda in ilmaha lagu talaalo munkarka inuu naco oo munkarka xun iyo waxa xun oo dhan ilmaha loo kharaareeyo oo khatarta uu leeyahay looga sheekeeyo oo uu qalbigiisa ka naca munkaraadka tarbiyadaasna waxaad ogaanaysaa nabiyullaahi muxamed sala allahu calayh wasalam wiilku awowaha u ahaa oo gabadhiisu ay dhashay alxasan ibnu cali isagoo yar oo saqiir ah oo waxba aan kala sooci karin ayuu xabad timira intuu qaato timirtii sadaqada ahayd ka mid ah ayuu afka ku ritay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa canaantay wuxuu ku bilaaba kakh macnaheedu waxay la mid tahay uf adoo yiri ilmaha yarka oo kale waa kelimad waxa loo xumaynayo weey inta markuu yiri wuxuu kala riwaayada kale nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam irmi biha
والطور وحافك شتي طور مرصد حاط ألقيها يا بني ألقيها يا بني ويلكيجي طور 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 وكطور مركئ طوري أي النبي وحي كيري أما شعرت في لفظ آخر أما علمت ميادا دريمين وآدن وغير أن لا نأكل الصدقة صدقة إنا ننعنين نبي محمد يقال كيسة صدقة إن لقى حرمي ميادا وغير أهل العلم وحي لهذين عنقان خطاب كان النبي يقول تشيدي ما فهمها هي والمد الله معناها وين أو حبارسية هي وحوية dareen la dareensiinayo tarbiyadaan qof kasta oo khitaab kan fahmi kara inuu ilmihiisa sidaa oo la khitaabo ugu tarbiyayo iyo markuu weynaado asagoo waxba dareemahayn inuu fahmo khitaabkii nabigu ku yiri asagoo saqiir ah macnihiisu sidoo u weynaa iyo qiimaha uu lahaa nabigu waa ka mamnuuc sallallahu alayhi wasallam maxaad ka qaadanaysaa ka fahmaysaa ilmahaagu hadday been sheegayaan beenta ha ku fiirsan hadday dariska tuuriyeynayaan waa shay munkar ah ku fiirsan hadday ilmo kala caayayaan cayda ha ku fiirsan hadday tuuga sameynayaan waxadayaan ha ku fiirsan gabadhu hadday yar tahay oo xijaab aysan qaadanahayn ee cawladeeda banaynaysa yaraan dalaan iyadoo yar oo saqiir ah ha ku fiirsan wax alla waxa dambiga oo dhan ha isdhihin ilmuhu waa saqiir waxba ma garto kalifaad ma saarna dambiga loo qori mahayo adaa lagu qorahayo هذا اللي يقول قرهي وهي تربية هذا اللي قالها بنا تربية بل نبي الله محمد فيري صلى الله عليه وسلم المها صغير كاه وانت يرتع وحبا انك للسوعي كرين ميا لو قرهي حبتي ميرو صدقاء وعنا تربية وين معناها اي لا هاي اي حديث كنا تصير وان المها اللي قلت تربية يا حمان اي تاي وحا حن او اللي قلت تربية oo akhlaaqda xun oo dhan la baraa oo la yiraahdaa waxaasi waa sidaas waa xun yihiin iska ilaali dhaqanka waa in lagu tarbiyeeyaa oo fahmaa waxaan inay yihiin wax xun waa inuu fahmaa ariga kale oo muhiimka waxa weeye oo khuduwaadka tarbiyada kamid ah alqudwatu alhasana dayashada wanaagsan ilmuhu inay ka arkaan waxay arkaan bay fiirsanayaan wiil yariisa oo yar ayaa aabiis wuxuu ka arkayaa sidoo u labisan yahay sidoo wax u xiranayo tabtiba wax arkaysa asagoo aan loo dirin tuu marad yarta ay soo qaato inuu sidii u xiranayo tabtibu xiranayo ninba aabiis wuxuu lahaa wuxuu yiri waxaan lahaa bidaar baan lahaa buu yiri tinta qayb baa maqan qaybta hore oo dhan meeshii baa la geeyay cunug yar oo 5 sano jira oo u dhalay markaas wuxuu may aniga sida aabahay in lagu xiraan raba soo jeed aniga sida aabahay in la igu xiraan raba qaybta hore in laga baabiyo rabatinta oo laga daayo ma fahmaayo waxaan inay tahay jiro ku qofkaan waxa weeyaan tintiisu inay amar ilaahay u biday oo aysan u joogi maya wuxuu u fahmayaa inuu aaba soo xirtay qaybtaana uu baneeyay qaybtaana uu deystay intaas ka fahmaayo alqudwatu alhasana yaa laga raba alqudwatu alhasana hooyada aabaha macallimiinta madaarista dhiga ama iskuulada ama jaamacaadka ama kuwa quraanka dhammaantood waa mas'uuliyad culus arinta iyada ah waa inaan qowlka iyo ficilku iskhilaafin waxa aabuhu sheegayo iyo ficilka uu sameeynayo waa inay iswaafaqsan yihiin hadduu aaba leeyahay beenha sheegin asagu been sheegayo hadduu asagu waxadahay hadduu leeyahay sigaarka jaadka cunin asagu cabayo cunayo hadduu leeyahay bax salaada aad asagu salaada aadahay maxaad u malaynaysaa marka ma soconayso وانا بدي إلهي يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحينا أرانا محاضوا الذين وحينا سميناها وخطر نبي الله الشعيب حقوم كسكويري وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما دون يا إدين ضمره وحي أنا ذكر يا أنو كان شيء ذكر يا منكر إنا أنو إدين ضمره ما أن دونه سيدا أن إنكر يا أنو ونوغهر هاي وإني آبيالك يا معلمين يا مدارس ضدك مسؤولك كا أي كأركان تربية أخلاق وناكسن وإني كأركان ولي بوحن ليا المضجع أنت إنه وجود شران المو وحي أنت وجود شران لا بقوله إسكولة ده يجمع علىها الصباح ده أيوك الله والصبح جمر كل تكده هو يدنا واحد كفيل أنت إني عن شيء أودي يارسه أبونا واحد ويا سوق إنه قصر شقي كفيل هاي الصبح دي وبحها هي عصر كيامات الضوء الساعة 6 ساعة بيقولي وكسر دعيا سوى الدالن
boorso dhabarka ku sitoo daalan qadadii oo diyaarsan buu cunahayaa galabtiina waxaa la yidhaahdaa banooniga iyo meelaha lagu soo ciyaaro aadaa qoladaas gacanta ugu jira subaxdii oo dhan ayaga ka faa'iidaysta qolo kalaa u soo baxday galabtii iyo habeenkii ilmaha waa qolada waxa weeyaan u furtay meelaha ciyaaraha shaneemooyinka mataqaanaa internetka waxyaalaha moobeeladii waxaas buu ku mashquul yahay adiga marka ma is arkaysaan baba u fiirso inaad is aragtaan baaba yarba inaad kulantaan baaba yar qoladan marka mas'uuliyadda ugu culus ay saarantaa waxa weeye qoladii iskuulada subaxdii oo dhan ee maalinkii oo dhan hayay oo ilmaha badankooda waqtigooda qaatay oo masaajidka maanta laga yaabo rag badan inay ka joogaan wax badan bay noo badbaadin karaan hadday ilaahay dartii noola shaqeeyaan wax badan ayay noo badbaadin karaan mujtamacana wax badan bay ka bedeli karaan hadday u yeeshaan karti inay maalinkiiba hal kelimo oo khayr ah hal kelimo oo 2 daqiiqo soconaysa hadday iskuulada ka sheegaan oo jaamacadaha ka sheegaan oo fasaadka magaalada ka jira uga sheekeeyaan oo xadiis nabi u sheegaan intaas hadday maalinkii hal daqiiqo ay 2 daqiiqo ay siiyaan wax badan oo badan bay noo badbaadin karaan hadday ciyaalka jeegada soo xiiranayo iskuulka ku dhiganayo iyagoo jeega soo xiirtay ay yiraahdaan iskuulkan lagama ogolo cunug jeega xiir خلاص digniin 3 bari baa haysataan cunug jeega xiiran iskuulka lagama ogolo cunug wata surwaal jeexjeexana lagama ogolo cunug wata dabagaab watana lagama ogolo maba laga ogolo inta hadday yiraahdaan kaliya oo go'aanka ay soo ragaan wax yar waxa laga yaabaa 10,000 oo arday oo iskuul u dareeraysa kulligood hal mar inay tintooda caadi ka dhigaan amarka ay bixiyaan kaliya baa ku filan iskuul baan garanaya ardadu markay soo galaysa nin baa kontaroola oo taagan cunugii surweelkiisu aan qowyada dhaafay xaq uu leexiya cunuga tintiisu ay sasineen xaq uu leexiya cunuga dabaqaab qaba xaq uu leexinayo cunuga cidiyaha aan iska gurin xaq uu leexinayo iskuulkaas waan garanaya dugsi sarwa xadiidka nabiga loo sheegaya tarbiyadii akhlaaqda wasaba loo sheegaya amarna wala siinaya markaas wuxuu noqday iskuuladii dhammaa iskuulka ka dhex muuqda oo qimma iyo sharaf meesha ugu sareysa gaaray buu noqday maamulkii ayaa markii dambe meesha ka baxay maamul kala yimid meeshii hore ayuu ku laabtay markuu 17 sano 8 sano sida u socdo u fiicnaa ayaa maamulkii meesha ka baxay maamul kala yimid waxba looma aabayeelin iskuulku waa isku dhaxyaacay nin waxaan arkay gabar uu dhalay oo iskuulka hal sano uga dhiman yahay hal sano uga dhiman oo iskuulka dhiganaysay buu ka joojiyay خلاص markaas waxaan ku yiri maxaa uga joojis hal sano baa uga dhimanay markaas wuxuu iskuulkii ma ahan dhismihii waaya laakiin dadkii ma ahan waa xaqiiqo dadkii ma ahan oo dhaqankii waa bedeleen culumay ahaayeen kuwii hore dadka u naxahayo damiir labay ahaayeen dad bulshada inay wax ka bedelaan doonaya bay ahaayeen laakiin dadka hadda joogay waa murtaziqa calooshi u shaqaystayaal weeyaan maxaa iga galay aniga 400 baan qaataa ama 300 baan qaataa ama 500 baan qaataa maadada heblaayada baan dhigaa maano physics chemistry dhigaa ayaan ma taqaanaa leeyahay ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar maxay ka qusay soo jeed ma shaqayda ma bahe macalinka tarbiyada sheekha u taala yaa kugu yiri diinkan wuxuu u yaalaa hebel iyo hebel buu yaalaa shaqo kuma yaa kugu yiri muslim yaadan ahayn waxa baabaayo fasaadaya abnaa'ul muslimiin Sooma soo dalkaagi ma haday fiicnaadaan wanaagoodi iyo salaaxoodu soo dalka iyo diintu kuugu dhismi mayso soo deegaanku kuugu islaaxi mahayo mas'uuliyadaas in la dareemaa laga doonayaa macallimiinta ragga jaamacadaha dhibaatada ugu badan oo naga haysata waxa weeyaan al-ikhtilaat gabdha iyo wiilal in isdhex dhigaan oo isku daraan oo aysan xataa tawciyo yar ayna u samaynin khatarta arrinta leedahay inay soo sheekay aysan u sheeg waa naadir qolo u sheegta kuwa ugu fiican waa kuwa yiraahda maada diiniyaha waxa dhiga sheekh hebel wadaad baa dhiga oo jaamacad ka soo baxay asagaasa xogaa marmar tawjiihiyo kuwa yiraahda weyn fasaladii waa isku daray waa isdhex fadhiya barxadii waxa weeyaan shaahi way isla cabahayaan cunadii way isla cunahayaan marka isla soo baxaan shan iyo afar bay u wada socdaan dariiqa inta ka soo bilaabaan buuq iyo hadal iyo iskuulka wixii laga yiri ayagoo saa wada qoslahay
oo waxa weeye xanjo wada dhuuqaya afka jalaato ku wada haysta bay gabdhayo wiilasa u socon u yaacay jaamacadahaasi maxay soo saarayaan maxay dal iyo dad ka bedeli karayaan waxa weeyaan khatar waxa ah kuwa sidaas abnaada ay tarabiyeynayaan iyo ilmihii intay gaaladu rartay Yurub ay geysay oo dhaqankii iyo luqadii wax walba laga zuuliyay marka isku soo laabtaan maxay iska dhalahayaan dadka noocaas kuwaasi markay yimaadaan kuwaana sida taan wax u tarabiyeynayaan maxay iska dhalahayaan isku keenayaan kuwaya waa fasaad khatar ah walaalayaal oo aad iyo aad khatar waa ragga jaamacadaha waxaan leeyahay ilaahay waxa uga baqda waxa aad qaadanaysaan iyo kasbanaysaan ilaahay uga cabsada waxa aad haysaan waa gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah oo shahwadoodu boqolkiiba boqol ay marayso ha isku darinin talooyin fiican mar walba siiya wacdiga iyo waanada ku badiya waad awoodaan dhaqaalaha aad kaydinaysaan oo aruurinaysaan toban diinta ka hadasha oo culimo ah intaad mushaar u qorataan inaad keentaan oo ay asbuuc kasta intaas oo muxaadara ka jeediyaan waad awoodaan ha uga baqaylinin diinka dhaqaalaha uga baqaylinin sida aad u dooranaysaan ragga maadiga ku fiican sida u soo kala xulanaysaan rag ahlu cilmiyaho dhooban oo farihi ka batay soo xusha joogta noogu imaadade duruus cilmiya meeshiina ku badiya muslimiintuna waa idin ducaynayaan waalidiintii dhalayna waa idin ducaynayaan dalkuna waa idin ducaynayaan macnaha aad leedihiin iyo qiimaha aad leedihiinna markaasaa la dareemaya oo la isku sheegaya hadda waxaa la yidhaahdaa jaamacadihii faraha ka bateen maxayse kugu taalla wax tayaa male wax qiimaa male waa sax wax tayaa wax qiimaa midna mala dhihi kara inaysan lahayn maxaa ku tusinahaya jaamacadda ay ka soo bixeen 20 arday ama 100 arday oo kulligood akhlaaqdoodii faashil ay tahay ma wax qiimo laha wax qiimo lama iskuulada sare ayaguna waa la mid gabagabada jaamacadaha iyo iskuulada sare marka ay marayaan waxa weeyaan waa meesha ugu khatarsan oo la rabo in la dareemo insha Allah khudbooyinka kala dhamaystiri doona